wasiirka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ee Soomaaliya Ambassador Jamaal Maxamed Xasan ayaa safar shaqo waxa uu ku marayaa deegaano ka tirsan gobolada lagu muransan yahay ee Sool iyo Sanaag halkaasi oo ay isku hayaan maamulada Puntland iyo Jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madaxbannaanida ee Somaliland oo wasiirkii ugu horeeyay ee ka tirsan dawladda federaalka ay deegaanadaasi booqday muddo 30 sano wasiirka ayaa BBC-da u sheegay in ujeedka socdaalkiisu uu yahay sidii wax loogu qaban lahaa dadka deegaankaasi oo ku tilmaamay in la dhinac marayba haddaba khadka teleefanka ee dhahar ayaan kula xiriiray wasiir Jamaal waraysigan ayaana ina dhex maray maantahay waxaan joognaa degmada dhahar oo qaybka safaradan ku mareynay gobolada Sool iyo Sanaag gaar ahaan guud ahaan dhowr gobol kale ku tagnay magaal tagnay bari tagnay aan rabno insha Allah inaan gobol kale sii tagno deegaanada haatan aad sheegaysid waxay ka mid yihiin meelaha ugu badan ee abaarta ay saameysay marka maxaad ku soo aragteen badan baan soo aragnay abaartu waa sax abaartu Soomaalida kale la qabaan abaar runtii ayaa ka dhacday deegaanka sidoo hore waa dhamaan laakiin abaartu waa jirta Soomaalida dhan way inta saameysay oo iyaga kaliya gaar ma aha xoolo badan oo wadanka ayaa dad badan soo gaareen xoolo badan ku nafwaayeen marka taas Soomaaliya wax la qabaan laakiin kuwa kale oo gaar ah iska jira iyaga oo mashaariic horumarineed iyo horumar habeeraad ka socda gobolada ma jiraan marka mar haddii aad tagteen indhihiina aad ku aragteen saameynta abaarta iyo waliba inaanay jirin wax mashaariic horumarineed oo halka ka soconaya idinka dawlad ahaan maxaad ku deeqdeen marka walato inaad ogaataa xaaladda dhabta waxay tahay intaadan waxba ku deeqana waxba bixin sababta waxaad bixinayso inaad ogtahay inay yihiin baahi rasmi ah marka hore marka dadkii aan la soo kulanay deegaanadii oo dhan waan soo marnay dad fara badan ayaan kulanay aqoonyahaankii waxgaradkii odayaashii ururada bulshada dawladdii dhammaan dadka oo dhan waa soo aragnay oo la kulanay welina waa wadnaa waxaan rajeynaa insha Allah markii aan xog helo inaan si ugu dhaqsaha badan aan dadka gaarsiino iyo dadka dhammaan wadda Soomaaliyeed meel kasta joogaan xaq way u leeyihiin inay dawladooda u tagto oo wax u baahan yihiin wax kala qabato hadda ka horna gobollo kale waa tagnay wadanka waana sii wadanaa kuwa kale noo qorshaysiin inaanu qof kasta oo Soomaaliya meesha ugu tagno oo waxaan la qaban karaan la qaban yaraantan awoodi kara waa tahay waxaad sheegtay inaad la kulanteen dawladda halka ka jirta sidaan ognahayna laba maamul baa meesha ka jira oo isku haysta keed la kulanteen waana dawladda Puntland halka ugu tagnay iyaga ayaan nala socday wasiiro kamid iyaga ayaan weli isla joognaa oo qayb ka ah waftigeega dadka badan oo xildhibaano federaalka nala socdaan marka waa la badan yahay deegaanka u dhashay nala socdo dhammaantii waxaan meesha u tagnay in xaaladda uu ku galo soo fiirno wax meesha ka socda waxaan isku daynaa insha Allah markaan xamar ku noqono beenan wixii laga qaban karaan ka qabano saacad wasiir waxa soo baxaysay warar sheegaya in meesha aad u tagteen inaad maamul goboleed cusub ka samaysaan arrinkaas kuma jirin intaan ku sheegay waxaan meesha tagay inaan ogaano arrimaha horumarka iyo banaanimada gargaarka banaanimada meesha wixii laga fulin karana ka fulno laakiin waxaaba yaraatee maamul samayn iyo arrimo noocaas aan tagno hadda ma jiraan waxaan noogu jirnaa arrintaas samayno meesha u tagno goboladan haatan aad maraysid Sool iyo Sanaag waxay ka mid yihiin meelaha sida aadka ay ugu murmayaan Puntland iyo Somaliland oo kale marka Somaliland iyo dawladda dhexana waxa u socday wada hadallo arrinta marka wada hadalladiisa wax yeelamayaan oo dhibaato ma keeni karaan والله ولا هذا اللي بناء تذكر دجان كأنه حلان ولا هذا كل شيء مجد تذكر دجان كم هلا ولا هلا يعني ولا هلا نحقق إليه هنا حلان حرمرك مشاريع حرمرك يعني غير صدق كهلان قرقار بنا أنتنا ولا هو سياسة الكرسي سلا شرعية عالمية كي هلا بنا أنتنا ولا مركز في حتى إنه قف إنه كقرقرتهم مع قف كله لبعض حاجات حاول تذكر وحيل جالسين كنا جالسين سياسة مركز هلا يعني واحد عروي مركز ولا هذا اللي سومال لاني دولة فدرال قود حياة سامنكم يلا كرام إن تذكر سومالية الدجان الدجان qaybtooda laga siiyo mashaariicda wadanka socota gargaar binaadamnimo la gaarsiiyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed ka joogaan in saas oo kale loo qabto in la horstaago karama idinkoon meesha tagin dadka deegaanka gargaar ma gaarsiin kartaan miya wallahi ana wax loo diyaaraan tagna ma jirto meel ku qoran tahay in noo diisno warkaayo jirto deegaanka Soomaaliyeed dowladda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya kamida inaan tagno waajib weeye masaaran haddana tagin ayaan dib u gelnaa dadkaas waana u tagnaa la soo qoranaa baahidooda ogaanaa oo qabanaa